waxaan aad ula yaabaa waxaan aad ula murugoodaa waxaan mar walba isweydiiyaa markaan arko dhalinyarada Soomaaliyeed waqtiga ay haystaan talentiga ay haystaan xirfadda ay haystaan aqoonta ay haystaan iyo waqtiga qiimaha badan oo ay haystaan iyo sida ay isuga faa'iideysanayeen dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ay lacag helaan in lacag badan ay shaqaystaan laakiin ma aaminsana lacagta koor inay u baahan yihiin in waqti isgalshaan tusaale aan ku siiyo hadii lagu wado dhaqtar aad tahay hadii injineer aad tahay hadii makaanig aad tahay hadii kaamirista aad tahay ma gabar ahaa ama wiil ahaa yani waxaan waxay ku timid waqtigeeda iskalisay waqtiga isku hortay waxbaa baratay juhdiyaa bixisay dan heerkaas aagaar dartiis baad ku yeeltay magaca laakiin lacag maysan ku yeelin magaca asaga waqti baa ku yeelay waxa ogaataa marka hadii waqti aad iskaliso wax walba qabanaysidna si sax ah aad u qabato waxaad gaaraysaa heerka adiga doonayso waxaad sameynaysaa lacagta adiga aad doonayso waxaad xushmad iyo karaamo ka helaysaa qof walba ka helaysaa soo weydiyo qof walba maanta heer gaaray wuxuu ku gaaray wax kale ma aha waqtigiisa buu si sax uga faa'iideystay adiga waa sameyn kartaa ana waan sameyn karaa asxaabteena inuu xiriirtana way sameyn karaa awlam yatadakkaru fihi man tadhakkar wajaakum an-nadhir waqti yar baa siinay oo ku waraqaadam ولي الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اغتنموا 5 قبل 5 ورشن انت تكون ما شن كفايديس oo كم tahay انت يرتاhay انت weynaanin انت يعني اضعاف ما قبطو انا xanuunsanin يعني waxa lagu tusinayaa faa'iidada uu leeyahay waqtigu haduu isku dhaafan dacmo waqti ku soo laabanaynin lacag waa kaydin kartaa laakiin waqti ma kaydin kartid soo marka wax walba oo la keeno awlan wuxuu ka kooban yahay waqti adiga abuurkaagii waqti buu ka kooban yahay dhamaystirka waqti buu ka kooban yahay soo marka xilliga aad nooshahay xilliga aad qaban karto awood aad leedahay energy aad leedahay waxna aad bedeli karto in ka faa'iidsata a dream without action is a daydream isa ka noqonin rimalna isa ka noqonin mala awaal beena ka noqoto action ficil iyo natiijo dhab ah